نبني ونرتقي قمم الفلاح وتاج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. waxaynu dhageysanaynaa aayadahan soo socda qisat al-ifk insha Allah. been abuuradkii Caaisha ay ku sameeyeen waxaaskii nabiga ahayd munaafiqiintu. idan markaa kelmadeenu waxa weeye kun cafiifan litakuna casiizan wacajiiba. waxaad noqotaa qof yow mid dhowrsoon si aad u noqoto qof qaaliya oo cajiiba. idan shan qodob baynu ka odhan doonaa min cajaa'ib alcifa, inuu qofku yahay qof dhowrsoon oo sinada ka dhowrsoon oo xaaraanta ka dhowrsoon oo wixii sharaftiisa iyo cirdigiisa wuxu dhimaya ka dhowrsoon. shan arrimood oo cajiibay leedahay. midda u horeysa waa sifooyinka qiimaha badan ee ilaahay uu ku ammaanay muuminiinta ee uu ku tilmaamay inay jannada ku gelayaan. markuu ka hadlayo qad aflax iyo suuratu sa'ala iyo sifooyinka ugu qiimaha badan ee muuminiintu jannada ku gelayaan waxaa ka mid ah sifada cifada ama dhowrsoonaanta. waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum. waa kuwa cawradooda xaaraanta ka ilaaliya iyo sinada xaasaskooda mooyaane iyo wixii u xalaala. cajaa'ibta labaad ay leedahay waxa weeye qofka cafiifka ah ee dhowrsoon, qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa waxyeela markhaatigiisa la aqbali maayo. la yidhaahdo hebel waa sharmuud, wuu sinaystaa, taasi way qaraaftaa. qof aanu dhowrsoona cafiifa waynu soo dhagaysanaya walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada. dadkaa sharafta badan dadka dhaliilaya ee ceebaynaya markhaati ha ka aqbalina buu ilahay. dee musiibo ka weyni ma jirto nin weynoo halkaa soo fadhiistay oo la yidhi markhaatigaagii waa la diiday, gabadh la meherinayana markhaati ka noqon maysid, kiis la wadana markhaati ka noqon maysida iska magaalayso oo na dhaaf. waa musiibo weyn, maradii baa ka dhacday. arrinta saddexaad ee cifadu ay leedahay waxa weeyaan ficil la geystay iska daayo. haddaad jeclaato qofkaas inuu ceebtiisu bannaanka timaado ama sine iyo xaaraan uu caan ku noqdo ama ay ummadda islaamkaba ku dhex faafto, dareenkaa laftiisaa lagula xisaabtamaya. qowlba maad odhan, ficilba maad samaynba haddaad doonto. aayaadka soo socda ilaahay wuxuu ku odhanayaa subxaana: ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun fi اdunya wاlaakhira. dadka jecelun buu ilahay. qofkan wuxuu jeclaaday dadkan wanaagsana la ammaanaya ee khayr kale inuu isagaa xun ay la mid noqdaan ama ay cawadaabaan ama ammaantaasi ka lunto. qofkaas wuu jeclaaday un jacaylkaasuu cadaab adduunya mid aakhiraba ku yeesha. waa musiibo weyn. qowlba mu odhan hadduu doonaya, ficilna muu samaynin. macnaa qofkan cafiifkaaba arrinkiisu cajiib leeyahy. waayo cirdigu iyo sharafta qofka oo sine iyo dhegxumo iyo abtirsimadiisa wax dhaawacaya lagu sheegaa wax sahlan maaha. waa garac baad iska leedahay kaas. qoladaa reer hebel nasabba maaha, kaa ay ku abtirsadaan mabuu dhalinba. war caynkaasaa laga sheegaya. waxaasaa inagu badan. waxaa runtii xusid mudan sida nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku xusay, qofka bani aadamka waa laga dhaafay wixii naftiisa iyo qalbigiisa ugu sheekeeya ama laabtu inuu ka go-aansado haddaanu samaynin ama ku hadal. afar arrimood mooyaane. afar arrimood isagoon ku hadal oo aan samaynin baa loo qorayaa waxa uu laabta ku qabsaday. mide waa tan aynu soo sheegnay. midna waxa weeye qofka muslimkaa dilkiisa. haddii aad doonto inaad disho waa dembi baa laguu qoray. innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi, siduu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. waa qof la dilay oo naar galay waayo isagaa doonaya inu wax dilo.
arrinta saddexaadna waxa weeyaan xaramka iyo muqadasaadka hadduu qofku go-aan ku qaato inuu xumaan ka geysto waa loo qoray waman yurid fiihi biilxaadin bidulmi arrinta afraadna waxa weeyaan gaalnimada walaakin man sharaxa bilkufri sadran hadduu qofku gaalnimada laabta usii daayo yaanu ku dhawaaqi yaanu samayna waa gaalad afartan arrimood waa saddexda kale waa arrimo waaweyn muqadasaadkii oo la duminayo qof la dilayo gaalnimadii liiskaasay tanina raacday arrin cajiiba wey arrinta afraad ay leedahay waxa weeye qofka cafiifka ah waxa ilaahay ugu abaalgudaa intuu ifka joogo inuu ilaaliyo ubadkiisa iyo ooridiisa barakana siiyo sidaa daraaddeed baa marka tijaabada aynu ku raacraacnay laba eego intaan daliil kaba la gaadhin dadka had iyo jeer hablaha ummadda xumeeya ama dumarka ragga xumeeya iyo qofka suuqa ku jira qaraafa ilaahay cudurro buu ku sallidaa ama ehelkiisaaba ka ibtiloobaba hablihiisaa ka waasha inantii hooyadeed hadhuka tuntaa iyana haadiskay baran sooma ahayn hadduu qofku suuqa galo kuwiisuna way gelayaan iska jooga markuu idhaahna adigu maad joogtid bay leeyihin soo adiga guuro gelaya adba laakiin qofka cafiifkaa wiil iyo gabadh ban weligiisina iyo xaaraan aragee masaajidka dhagaxa dhigaya soomaalida waxay idhahaan ka cafiifka ah horta masaajid dhagax ma dhigi karaya qofku waa wax wanaagsan waaya qofkaa isagaa ilaahay wuxuu ugu abaalgudayaa marka u horreeyaba ubad badan buu ilaahay siinayaa asturaad buu ku arsaaqayaa ammaantiina waa u dheertay arrinta shanaad ee jirtaa waxa weeye cajiibka ah qofka cafiifkee dhowrsoon haddii cirdigiisa iyo sharaftiisa wax la yeelo ilaahay wuxuu ku difaacaa waxa la yidhaha khawaariq alcaadaat khawaariqaas waxa weeye aayaat wa mucjizaat wa karaamaat aayadaha ilaahay uu ku difaacaa subxaana wa tacaala cidba kuma hadleeya 16 aayadood baa inantaa yare reer maka ee caaisha xaaskii nebigaba ha ahaato ayaa ilaahay ku soo dejiyey qur'aanan yutla inta adduunyadu jirtay qur'aan la akhriyaya iyada laftigeedii baa yaabtayba caaisha waxay leedahay waryaare war waabaan iskala han yaraaba inuu ilaahay qur'aan la akhriyo nagu soo dejiyo waxaan rajaynayay markuu ilaahay bari yeelayo inuu riyo iyo manaam iyo waxaa tusiyo anigaygii yaraa un baaba qur'aan laygu soo dejiyey bayt iyadii baaba yaabsanba waa 16 aayado qofka macnaha aayadaha garanaya canaan aad u badan baa ka muuqanaysa maxaa saa odhan weyde maxaa saa odhan weyde ilaahay ummadda uu la hadlaya islaamka waxa ilaahay uu ku difaacaa subxaanahu wa tacaala mucjisaad waa 4 qof 2 nin iyo 2 dumara ayaynu soo qaadanaya mid waa caaisha waynu xusnay midna waa maryamo bintu cimraan maryamo bintu cimraan waxa ilaahay uu ku difaacay maxay ilmihii yaraa ee hadlay oo ahaa inankeedii markii la yidhi waxaan waa maxaad la timiye sinadan iyo garacanaad sidataa dee isagun bay farta ugu fiqday bal hadda kan la hadl qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaab suuratu maryam ka akhri waa mucjisa nebi yuusuf calayhi salaam maxaa uu yihi washahida shaahidun min ahliha haddii iyadii ay eedayso tidhi maa jazaau man araada biahlika suu'an intay farta dhexda ka qariitay mukurka dumarku badan ah iyadaa ku rarnayd iyadaa ku raran markuu kusoo baxay xagga kale ugu rogtay wixii wanjalka la odhan jiray way wanjashay wanjalku wuu badanya weligii wuu soo jiray wanjalku waxay tidhi maxaad u malaynaysaa ninkaygii oo intay iska barooris ninka xaaskaagii ood ka maqnayd maanta xumaan ku samaynaya dee isaguna intuu iska difaacay buuhi washahida shaahidun min ahliha bal hadda arrinkaa ma qabe eh markhaatina wuu jiraa dee markhaatigii waa kan waa ilmo yar baa loo badayay oo meesha joogay waa mucjisa karaamuu ilaahay ku difaaca subxaana wa tacaala nin jurayj la yidhaha baa jira jurayj oo axaadiidta saxiixa ay xusayso nin iska saalixa buu ahaayo meel ku cibaadaysto qalwadiisa iskaga jira mid baas baa ku hamaansatay oo naag ah ayaa ku soo ruqaansatay markaasay tihi karaaba malaha loogu qaatay shaydaankaa kusoo dhirbaaxay markaasaa waxay tihi xumaan baad doonaya inaad igu samayso markii uu diido xaggaa uga sii jeedsadayna mid halkan oo ari jooga ari raaca ayay nafteeda u dhigtoo soo uureeyey markaasaa la yaa kuu baxay sooma taqaani innaga inanta uuraysata waxaa la idhaha heblaayo yaa kuu baxay baa la markaa waxay dhaha yaa kuu baxay reerkoodii say tihi kaa halkaa taagana tukanaya ayaa ii baxay dabeedna markaasaa la soo qabtay waa la garaacay miskiinkii
yuhuuddii barigaasaa garaacay qalwadiisii yaraydna way ka dumiyeen hilifahay u qaadeen dabeetana intuu ilaahay baryay buuhi bal inanka yar halay tuso inankii yaraada laga keenay startarkiisiibuu ku taagay wuu gujiyey mufatacanahu saasunbuu u gujiyey asuu ihi man abuuka arkumaa ku dhalay inankii yaraa un baa yidhi abiraaci dee ninka adhiga la jooga habaay adiga maa oo laygu soo kaa riixaye ka i dhalay waxa weeyaan ka adhiga la jooga afkala qaad baa dhacado ninkii baa la raali geliyay oo dahab aan kaaga dhisna baa lay buulkii yaraa waari daaya buu dahabna ha iga dhisine halkaasay tii caloosha loo buuxiyeyna halkaasay ku fashilantay waa karaama isagu dee nebi ma ahayn markaas karaama ilaahay uu ku bari yeelay marka aayaduu ku bari yeelayaa mucjisaad buu ku bari yeelayaa karaamuu ku bari yeelayaa waxaynu kusoo ururinaynaa walaalayaal casrigan aynu joogno cifala-aanta lagu faanaa casrigan aynu joogno waxaa lagu faanaa oo dadka horu mara ee ilbaxnimada sheeganaya gaal iyo isxambaarkiisu ay ku faanaan hebel cafiif ma aha markaasa haddii la idhaha weligii kaasi naag muu arag ama inantaasi ninnimay arag hayaay bay leeya waaba dhufaanan yahayba qoorhba ma ahaba oo weligii sidaasunbuu isugu rarnaa un oo isaga hilan yahay waar markaasay odhan dabeetana caafimaadkaaga waxu dhinmayaano maskaxdaaba wax ku noqonaysa haddaanad maaragtay hamadaada gudanin hilifahaaba loo qaaday luqad iblays baa lagula hadlay iska macruuf dabeetana waxaaba looga sii bilaabayaa carruurta yaryar dugsiyada hoose iyo dhexe iyo masala iskaga sii tababarta inaad cafiif noqotaa waxay sheegaysaa aba lagu tuhmayaaba oo raganimadaada iyo ayaaba wax ka sii yihiinbe cafiifnimadu waxaasoo faa'iida abay leedahay qofku casiis buu noqonayaa cajiibna wuu noqonayaa maantana in badan aayaadku waxay ka digayaan sidaynu dhegaysan doono qof cafiifa wax laga sheego mar waxaan la yidhaahdaa agabkan maanta wax lagu baahinayo